heshiiska si iskhilaafsan oo aan dheelitirayn oo weli mugdi ku jiro ayaa uu u soo gaaraya dhagaha ummadda Soomaaliyeed qaabab kala tarjuman oo u baahan in xogtooda la gaarana oo ay ka maqan yihiin sababtoo waxa weeyaan bariyahan ama siyaasadda Soomaaliya badanaaba waxa ku hardama taageerayaal ay madax marsan tahay xigtada ama waxsiinta madaxda sare ee dawladda iyo ka soo horjeedayaal qaab qabiilaysan iyo jagama haysid ayaguna uga soo horjeedaan nidaamka dawliga ah labadaas ayaa mar walba siyaasadda Soomaaliya bajaraha u qabto dooda idaacadaha ku dooda dadka Soomaalida madaxa banaan ee qarnimada iyo Soomaalida u madaxa banaan badanaa bajaaris ma helaan hadii marka kolka laba aqalo sida warka isku tuurtuuraan aan dhinac iskaga reexno waxa weeyaan Soomaaliya inay la nabado Ethiopia waxa weeyaan waa wax meesha ku jira weeye iskaashi wax wada qabsi oo walaalnimo ah oo laga guuro colaadaha waa wax muhiim ah weeyaan laakiin qaabka madaxweynaha iyo warka u dhigay iyo qaabka ra'iisul wasaaraha Ethiopia warka u dhigay laba arrin oo kala duwan weeye af Soomaaliga hadii meesha loogu tagana ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu ummadiisa u sheegay in ay la midoobayaan sida Mareykanku u midoobay ama Imaaraadku u midoobay in Ethiopia Soomaaliya u la midoobaysa taasi way ka duwan tahay iskaashi baan la sameynayna marka af Soomaaliga sida u kala duwan ayaa wuxuu yahay mid jahawareer siyaasadeed ka duwan yahay hadii marka macnuhu yahay Soomaaliya Ethiopia midoobaya Soomaaliya Ethiopia waqti xaadirka ma midoobi karaan Ethiopia Soomaaliya qabsanaysa way hadii macnuhu yahay waa la iskaashanayaa in la iskaashado oo kheyraadka iyo ganacsiga iyo nabadda la iska kaashado waxa way laga guuro colaadaha soo jireenka ay waa wax wanaagsan way marka labadaas qodob baa taagan marka midka fiican wax ka wadibay midka aad loo buuburay loo hadalaya waxa weeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa midoobaya waxa weeyaan hadal la qaadan kara ma waa hadal gafku ah qarnimada Soomaaliya waa hadal gafka ummadda Soomaaliyeed waa hadal soo jireenka gafku ah aan waxna ka taraynin nidaamka iyo hanaanka geeska Afrika hadii se warku yahay waa iskaashadana waa war gooriya marka arrintaas waliba kala cadda sida waxa lagu heshiiyay waa tahay diblomaasi Maxamed Maxamuud Haye وسلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ماذا يقول جرى الضوضة يدقيستياش إذا عاد جوب جوب وحوي كلن كعيد مالنتي اللي بعد عيد الدعي روساري أحمد ومدحين فرماجو كلمان وحال يابله وضن كالصوماليا وصدق سنة بدكرو الدجال كتيرو وضن وحنا مالجلين سمعين كرا مركو intelligence جيسا تقاليسا بنجيريسا انتوا وقعنت الدولة ده كتيرو دوكومنتيga dawladda ku jiro marka waxa la isweydiinayaa maalgashigu wuxuu u baahan yahay in qofka muwaadinka Soomaali marka hore la amaan geliyo maanta dadkeeni waa kala daadsan waxyaalaha aasaasiga ah ee waxbarashada xalay madaxweynuhu markuu hadlayay kooban uusan hadlin inuu waxbarashadii Soomaaliyeed soo celiyay inuu caafimaadkii Soomaaliyeed soo celiyay inuu korontadii soo celiyay inuu biyihii soo celiyay inuu dadkii damaanadooda soo celiyay madaxweynaha wuxuu xoog saaray arrimaha dibadda iyo iskaashi maxaad yeelataa aasaasiga waxyaalaha aasaasiga ah ayaa waddanka ka maqan marka anigu hadda colaad Ethiopia kama hadlayo waxaan ka hadlayaa dadka Soomaaliyeed ilaa intay ka helayaan waxyaalaha aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed u baahan yahay oo ah inuu helo hadda hal dhakhtar ama hal hospital oo dawladda federaalku ay leedahay ma jiro hal iskuul ay leedahay ma jirto hal xero ciidan oo dawladda federaalku ay leedahay ma jirto intaba ama UND baa lacag bixisa ama United Nations baa lacag bixiya ama AMISOM baa bixisa dadka Soomaaliyeed markuu dalkoodu gacantooda soo galo marka kadib ha ka hadlaan maalgelin iyo heshiis caalami ah waa tahay Ustaad Cabdullah Yabal heshiiskan iyo hadalkii madaxweynaha xalay uu ku sharaxay maxaa adigu kaaga baxay dhinacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلامتي وأنا كم حسيت مع كم مدعى كيف كلياش الدودان سيدا دباني كهوري أنا بعطيك هدي شيء سلكنا شيء وعاقل كر دولة ديلترد دولة الصومالية سيدا كذا واجي مع دولة عجيبة كتاع دولة وحبة كدي من لقاء دولة سيدا شيء وعاقل كر دولة السمام دولة إثيوبيا سيدا سكان فلك لكن واجي حاجة مركوت كرئيس وزراء وحبي يربو
ومدوبينا مدو waxaa ka horeeyo horta iyo in la iskaashado ama ganacsi la galo Soomaaliya Itoobiya dawlado colaado xooggan soo dhaxmaray waay waxaa ka horeeyo horta colaadaas in laga heshiiyo meel la isla dhigo Itoobiya mar dhow aan sida u fogeyn anfeenkii waxay Soomaaliya ku timid xoog kumanaan kun oo qof oo Soomaaliya ayaa gacanteeda ku baxay barakicin lagama heshiin gadaal markaa u noqdana dawladda Soomaaliya maanta wili ma laho ciidan Soomaaliyeed oo midaysan ma laho lacag ma laho bangiyo ma laho jidad isku xiran ee dawladda maamusho dawladda ma tigi karta afkooda ma tigi karta balcad iyo jawhar waxay Itoobiya ku leeyihiin waxaa ka horeeya horta in dalka dawladiisa ay gacan adag ku qabato wadankooda idoo la kaashanaysa dadka Soomaaliyeed meeshana ka saaraysa in koox kaliya ay inta habeenkii fadhiistaan maalintii waxay rabaan kaga dhawaaqaan bila Soomaali dibkeeda leedahay waa tahay aqoonyahan waxa ku laabanaya falagle Axmed Shire ma ku muuqataa in heshiiskan waqtigii loo baahnaa uu ku soo aaday maya sida labada aqoonyahanba ambassadorka iyo aqoonyahanka waxa la qabaa sida ay warka u dhigeen waxa weeyaan maalin cad sacab lagu badadi karo waxa weeye dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee dawladdu joogta oo aysan waliba awoodeedu aysan ku baahsaneen deegaanada kale wada ogtiin dekadaha iyo nidaamka laga hadlaayo maamul goboleedyo gacanta ugu jira waliba beeru gacanta ugu jira marka sida madaxda igu horeysay ay u tilmaameen waxa weeye dalka Soomaaliya xiriir caalami iyo xiriir sokeeye midna lama yeelan karo dal kale Itoobiya ba iskida sababtoo waxa weeye waa dad la kaalmeeyo oo gacanta lagu hayaa walinahay waxaana weeye dekadaha hadda laga hadlayay yaa maamulayo dekadaha hadda yaa maamula dekadaha ma maamusho dawladda Soomaaliya ee qaranka Soomaaliya matalaysa waa in madaxa kor u qaadaa heshiisyada ay galaysaa ay yihiin kuwa iyadoo ay maamusho ama iyadoo wax laga weydiinayo haddaba wax laga weydiiyo daraha ay dadka shisheeye ay kala yihiin Soomaaliya waa ogtahay oo dekadii Berbera qorshaha ka socda dawladda Soomaaliya wax laga weydiiyo arrimaha boosaaso ka socda wax laga weydiiyo arrimaha Kismaayo ka socda wax laga weydiiyo waxa soo dhan marka waxay noqonayaan heshiis ma noqonayaan laakiin waxay u muuqataa ummadda Soomaaliya u fahamsantahay hadalka 10 sano ka hor Xuseen Ciidid uu sheegay ahaa Soomaaliya waa Itoobiya waa Soomaaliya isku passport baa noqonayna waana jadwal qatar qarnimada Soomaaliya kuwa qaadan karada ma ahan furaantii wax laga doodi karo oo maanta dal isku keenay karada ma aha iyadoo aan loo fasirin in aan cadaawada Itoobiya u hayno ama inaan lamad la rabin ama in dawladda lagu xumaynayo midna inaan loo fasirto sida ambassadorka iyo aqoonyahan kale ay sheegeen Soomaaliya qarnimadeeda maanta ma hanan karto heshiis caalami ah awood ay wax ugu socdaan male qabaa'ilada dalka gacanta ku haya waa in laga midoobo waa in qarannimada soo noqoto waa in la qiraa in qarannimada Soomaaliya dawladda Cabdullaahi Maxamed Farjamaac ay ka tahay mas'uul waxaas oo marka la isku soo xoriyo waxay astaan u tahay qorshahaas inuu yahay gumaysi cusub oo qaab cusub raba Soomaaliya inuu ku qabsanayo mana u maleynayo dadka waxgalka ee Soomaaliyeed islaamka hadii ay ku leeyahay wadaniyadani in boqolaal sanadood wixii aynu u dhibanay gobonimada ku salaysnaa in si yar oo hal maalin gelinkeeda inta lagu saxiixo lagu qaadanayo waxa la leeyahay Soomaaliya waa ka weynta wax go'aad inta lagu duuduubo dhowrina meel uga shirto waa tahay danjire maxamed caalim dabcan sidaa la socoto madaxweynaha dowladda federaalka wareysiga uu ku faahfaahinayay arinta heshiiska waliba dekada waa tuu leeyahay waxaynu aragnay inaanan Soomaaliya hadda dhaqaale ku maalgashataysan Ethiopiana dhaqaale ku maalgashataysan balse markii la arko in malaayiinta Itoobiya ku nool in ay maalgashi inuu imaan karo marka maxay kula tahay in dawladdu qudheeda ay ka hortaagan tahay in iyada ay shirkadaha wax maalgeliyo iyo dawladaha dhaqaalaha ku hormaray ay inta u tagto ay tiraahdo wax noo maalgeliya waxay aniga ila muuqataa wareysiga madaxweynuhu ku talagalay inuu dadka uga qanciyo heshiiskii dhacay maalinta Jimcaha waxay ila dhigan tahay
صح واحد وده سفري عن ما يبغى هذه أدها بوح بايرك وفرن هلا هذا سؤال شديد مركب نقول نقضه مدحوينه شرفت له مع عبد الله فرماجو أنه أبو قيمين مدحوين مديسة يمان ديت وطنك وهايستو ثلاثة عن شيدين إنه وطلع الصومالي النمو مدحوينه مركو حالي حضي وطنك الصومالي قرحي قوينا دعاي أفريقيا أكتوبر مصر هذا القادم فتهدي بيها مصر هذا القادم هيران حلبان الذي هدا هيرشوا رمضان كدحيس اللي ودي بلعب أكتر كمصر هذا القادم تلياش عيدا كلا بدلي مصر هذا القادم قدوميها برلمان كلا بدلي مدحوينه واحد مودة إنه قرك اسكو صار يو IMF يوم تقنا العقد يوم تقنا حالة لكن مدحوينه شرفته وحنا كعول سرينا والوطن كان وحبه هي وحي فرماجو وانين أقول له وانين جامعة هير سنة جاري وانين مرايكن كيمي وانين برتع علمك خلافاتك هدانو يسيليلين صومالي وحي أبا هنت ولالو صومالي إثيوبيا هبين كي مللي هيستي إلا هدا وحي كل يونا ينسي لعبة لقى فجي ويسكو ديني قبصدان التلياني كل دقالمين شكل كمجرو رئيس وزراء إثيوبيا مركو السودان عادي أرمها دكذا كلها لي مركو عادي جيبوتي مركو عادي كينيا وحكومة البرسيونية ودكتها الصومالية حتى لو هي فوق كويس كانت دكتها بربرة وأي منطقة إلى ضيعتها ويديني فكا حتى أفكه قليو إثيوبيا وشوين بني إنجليزية دكتها إنجليزية يدو بالباطل الصومالي يجرتو والنصيب حلو مركا أروح حلو أركا هذا الكلمة الحلو حلو الجديد بالحلا شرفت عليه إنه وحي الشعب كسرين وأنت قليل شو ضرر إلى مصر هذا القادم مركا هو نصيب حلو الصومالي كجرته. واتاي أستاذ عبد الله معلن إسلا سؤاشاس محي كلتها إن دولة الفدرالك أي كور تاجينهن إن بحياشة يو دولتها وحمال جرية أنت أتوقع أي تراضو دكذين النومال جرية وأنا إثيوبيا لا مريض. بعض كل الصوت بدعوينها أصدق كجوابي وعقول لي إثيوبيا وحبا ما يجي أنا كنا وحبا يجي وقلت مليون إثيوبيا كده أيام كذا السيدة لما دولة دول وحي سبحان الله صحة بدعوينها وكذا أنا كنا معنا قلت دولة الله عايز أنا كنا لا بشيء يعني وباعنا وباعنا إن ذلك مدحوينها iyo mas'uuliyiinta ay la shaqeeyaan ka shaqeeyaan inay gacanta wada gaarsiiyaan dalka maamulkoodana ay hoos keenaan haddii federaal la yahay iyo haddii laga noqon midnaba midda in dalkeena ganacsi lagu sameeyo ama aan horumar ku sameyno adduunka dowlado badanaa diyaar u ah inay wadankeena maalgashi ku samaystaan مثلا مركز مسوقه قصه عادي وزير الربا واجي حسن الفوزيو من جاينا كوتك وهي سميسي دقدقه كان يلي سب كدلك شيناسكا الكودراش الى وحده ولا مالكش اللي خمستان وعاد مو دامر كان سو نقطه الدوله اللي تخلصت اذا انا لا تخلص الا حتى سولدنا waxaa laga maamulaa gacanta banaanba oo aan ahayn Itoobiya kaliya oo jiisan wadankan inuu hore u socdo wadankan waxaa jooga shabaab wadankan waxaa jooga dadka laayo oo aanan weli la cadaynayay مثلا haddaan ku soo qaado qalci 14 Oktoobar ka dhacay Xamar ku dhinteen cadad ku badnay Soomaali weli maynan sheegan shabaab حتى سؤال ما أنا يسوي تاواي وعندك جيسة قرعة حاجة لك صوتنا يا كذب دولة وحالة الربا إنتين كبودي إثيوبيا سيدا عالي كده واجي هذا بدعوينها وحيابا بدن أو صومالي وليس نبرنا كما مرول موحوكا لا مرد اعتماده الرين إثيوبيا خصوص ما قرح بدل بجد دعوينا وعلنا قال وطن كمال وطن وعكس خيسا إلى إسكوعلتو قبل هذا إلى حديد هذا معمول ليالا معمول هذا حديد ليالا إلى يكون وطن كعب
waxbarasho lacag la-aan oo gaarsiisa meel walbo ilaahay kuwa isbitaalo kuwii dowladda leheeduna maamulay ee magaalada muqdisho magaalada muqdisho meelo ka mida la tigi kara madaxweynaha markaasuu wuxuu ka hadlayaa Ethiopia inaan dekada u sameeyno ama waxaa kaaga daran dekada in ay ku ganacsato ma aan iskaashi xataa ku ganacsato ma aan dalka dal oo iska daahiisa kuraya dalka dal baale madaxweynahan waa intaan ogaaday wixii lagu doortay waa asaasi Ethiopia barag inta ay umaysan dhaca loo qabto aan lagu doortay madaxweynaha la yimaado wax ummadda Soomaaliyeed waa tahay waxaa u gudbayaa Axmed Shire Falagle waxaanu ka warqabnaa aqoonyahan Falagle in aysan jirin xuduud Soomaaliya iyo Ethiopia aanay heshiis ku ahayn sidee bay ku suurtageli kartaa bay kula tahay in wadooyin Ethiopia iyo Soomaaliya la isku xirayo inta la dhiso la iska kaashado xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga u bulaalo horta dee madaxweynuhu sida ragga kalena ay sheegeen isagaa qiray Ethiopia anu laba waddan baahi aanahay waxaas dagaha Soomaaliyeed ceeb ku ah oo waana la xoogi karaayo dadku adduunka waa isxogtaayo dawladda waa qabsadaan laakiin madaxweynaha qaranka waxaa u malaynayaa ceeb ku tahay inuu in laga maqlo ama ra'iisul wasaare dawladda shisheeye Ethiopia lacag siinaya ay ku maalgeliso dekada Soomaaliya waxa weeye dhaqaalaha Soomaaliya laga sameeyo dawladda shisheeye ayaa ku maalgelina walay maqlayso dawladda shisheeye ayaa ku maalgelinaya Ethiopia siinaya anuu Ethiopian ma ahayn dal Soomaaliya xor ah nahay dawladdu dekada markii naloo maalgeliyo oo aan dekada furano oo dekada anagu maamul aan yeelano Ethiopia badeecooyin uga baahanaa jira ayuu kuwa inoo baahantaa jira nabad aan iskaga baahanaa jira isku xir baa jira waxaasna waa la sameyn karaa laakiin imika waxa weeyaan waxa muuqda waxa weeye dawladda Imaaraadka iyo dawladaha reer galbeedka Mareykanka ayaa Ethiopia tal lacag si dekada afar ay ku bisanaysaa macnaha waxa weeye waa gaf bay ku tahay qarannimada madaxweynaha gaf ku tahay waxa kale oo iyaduna aad war aad looga nahaa madaxweynaha xalaba ku soo fadhiisay sanadlaha khudbada sanadlaha laga sugayay wixii magaalada Muqdisho bishii Ramadaan kama dhicin qarax kama dhicin 120 qof ayaa la dilay oo waliba ciddiisa aan loogeyn si qosla oo wajgiisa ay farxad ka muuqato ayaa uga jawaab iyadoo aan xitaa dunyada looda rabaayta inta laga dilo ay ahayd qof mas'uul inuu xoolaha la laayay oo ka xumaado wali 20 qof baa magaalada Muqdisho lagu dilay markaas uu soo farxsan wuxuu ku faanay magaalada Muqdisho aad u fiican tahay waxa soo dhan u qaadanayna anaga ariga ragga kale meesha ku jiray dad mucaarada oo ama kuraas raadinaa madaxweynaha mucaaradka ma ahayn laakiin xaqiiqatan hatta dawladda muuqatay waxa weeyaan in laga digtoonaado Ethiopia daris baan nahay waa tahay waxaadooda ma wax laga doodaa waxa weeye Ethiopia ayaa carabtu waxay siinaysaa ama Mareykanku wuxuu siinayaa lacag ay dekaleena ku maalgashato ceeb bay nagu tahay wax la difaaca maahan madaxweynaha iyo dawladda waxaan leeyahay arrintaas oo dadka Soomaaliyeed idaacadaha ku soo noqdaan kala shaafiyaan dadka Soomaaliyeed afka gobonimada ahaana waxay qaadan karaan maahan arrinta halaga fiirsan leenahay waa gaf qarannimada ku soo hito waa tahay waxa u gudbaya diblomaasi Maxamed Maxamuud Nuur Caalim diblomaasi madaxweynuhu sidoo kale shaqada xukuumaddu ka hadlay oo waa la socotay qaabkii uu dabcan uga hadlay waa daawatay wareysigii warbaahinta dawladda uu siiyay marka caalamka laga hadlayo bal ka waran madaxweyne ama agaasimihiisi amaanaya ama ra'iisul wasaarihiisi amaanaya maxaa taa ka ay dabcan siyaasadda marka la eego kale ay ka dhigan tahay madaxweynaha sharafta maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagu xaq uu leeyahay xilliga uu mandate-ka haysto ama prime minister ha amaano waxaan rabaa inaan su'aashaada dib ugu soo noqdo waa la socotaa dawladda Turkiga waxay shirkad ka tirsan ay hadda gacanta ku haysaa dekada Muqdisho waxyaalo badan bayna u faa'iideysay dekada Turkiga shirkadda haysa hubyo way dhisi kartaa kismaayo dhisi kartaa way maal gashan kartaa isbitaalada la maal gelin karaa Soomaaliya adduunku maanta dawladda loo baahnaa shirkadaha la keeni karaa marka dadka in la qaldo arinta Ethiopia halkaas ugu haray tan waxa ku saartay madaxweynaha khudbadiisu madaxweynuhu uu dawladda uu wasaarihiisa ku amaanay
reer wasaarihiisa wuu ammaani karaa reer wasaarihiisa ammaantiisu waxay ka iman kartaa shacabku reer wasaaraha kuma qanacsana reer wasaaraha wasiiradu lama shaqeeyaan wasiirka arrimaha gudaha meel laguma oga wasiirkii dekedaha meel laguma oga wasiirkii arrimaha dibadda meel laguma oga wasiirkii kalluumaysiga meel laguma oga maamul goboleedyada meel laguma oga khilaafka Hirshabeelle dawladdu wax kama qaban khilaafka muxuu ahaa Jubbaland dhexdeeda wax kama qaban galmudug wax kama qaban fatahaadii biyaha wax kama qaban abaari wadanka dhacay wax kama qaban dadkii October gobolka Banaadir isbedelkii lagu sameeyay meel uu socday meel ka socdo ma naqaano marka haddii wadanka lagu amaanayo wasiir Beyle kiish qaad ku tiriya oo wasiir daacad u ah farmaajo iyo khayro oo wasiirada kalena qadiyadooda ilaashanayaan marka xaqiiqda jirta xukuumadii ugu liidatay way maadaama iyadu ay wada shaqeynay oo intaasoo kale wasiirka arrimaha dibadda aan la arkin oo intaasoo kale wasiirka arrimaha gudaha la arkin oo khilaafka Hirshabeelle ee xukuumadii aan wax ka qabanay oo fatahaadii biyo wax ka qabanay oo colaadii maamul goboleed ay taagan yihiin oo dadkii mataqaana ay maali ilacadii iyo meel walba ay leeyihiin wadankii xukuumadii ma aragno hadda farmaajo waxa uu daawanaya waa wax isaga u muuqda anaga noo muuqda hadaan dadkii talada Soomaaliyeed ay ka go'do waa tahay aqoonyahan Ustaad Cabdallah siinaya Ustaad Cabdallah ma ku muuqanaysaa adiga in khilaafyo iyo hardan kale amaba loolan kale oo xagga ganacsiga ama siyaasadda u dhaxeeya oo dawlado kale oo shisheeye ah arintan inay saameyn ku leedahay Soomaaliya inay dekedaheedii shaqeeyaan oo dabcan xagga dhaqaalaha oo kale kobac u ka yimaado fiiri Soomaalida maanta dalkeeda waxa ku soo wada jeeday indhaha caalamkooda dawlado badanaana waxa damac kaga jira inay Soomaaliya gacan ku yeeshaan la tacaamulkeeda ama inay la dhaqmaan ganacsi ahaan waxna la wadaagaan dawladahaas isku si uma wada arkaan sida uga qayb qaadan lahaayeen dalka Soomaaliya inay wax gacan la yeeshaan gacan ganacsi dawlado waxay qabaan inay ayagoo noo talinayo namaamulaan sida Itoobiya iyo dawladaha reer galbeedka qaarkood dawladana waxay qabaan inay waxna la wadaagaan waxna la isdhaafsado sidii Turkiga China iyo dawlado kale oo yaryar dawlado kalena waxayba ka shaqeynayaan Soomaaliya in la cuuryaamiyo ayna meeshada dhaafin marka waxay khatar ku tahay deegaankan alla nagu maneystay استراتيجي أنا أيو خطر فيها إيجا سيدا يجوا أركان وما بقى من سنة بالرزق إن الله بحثه مركا إنها عالم كنوان وسجنا لكن واحد سؤال ماشى تاجن أنا عن مروة الملايات ما ده أنا كون كليه مع إثيوبيا هوس إثيوبيا دولة حق ولا وايد دنيا بالرأسه أنا كان حق ولا أنا إن دنيا بالرأسه إن عمل سوي من إثيوبيا يعني أنا واحد ما كم تانو لكن وحكور إن كيشينو علاقة بدن أنا صود عمله وحكور إثيوبيا إن كأنت كلا بعضه دلك الصومالية فرقلين تحوجني كويس مثلا المركز بوسوق هذا لحية تمنك قضب وحكم هذا قضب تاعي وحكون سلالة جينا قبلات وحتى بكما مخنو إثيوبيا جنرالا كنتو معمولات دلك أو عمر كتاعليه مركز دولة سيداس نو دعجوت إذا هذا هو باقنا أو هذا لا باهنا كوسينا لطيفة هو باقنا دكلينا هذا مال كليس أتوقع إنه نصاب بريء أنا كسيني ده بريء ده ونعمة لكن هذا قاعد هاجر تاجر كرني كلا يصاب بريء وحلو خش لوان رد واتاي أنا حلت كلا في عنيا أنا واينا وحبارينه إلى يدل كان نسيه ويكون عندنا كشخيسين عقلي أنا مال السوق كانوا madaxweynaha waxa uu baaqa inuu ka soo gudbo halka kooxda joogo Soomaali waxay leedahay rag aqoon leh raqiira leh la tashto wadankaana la wada hagaajiyo maamulada la digooda la hoos keenay dawladda wadanka aan lacag lahayn see dekada u bixi kara lacag dalka laga wada maamulo mali bangiyo mali war ma aqaan aniga sida waxa ku sheego laakiin madaxweynaha waa inuu isu noqdo dawladiisana inuu amaano waxa ka horeysa in dadka amaana waata waa santa mas'uul oo dadku adeegsada asaga amaala dulna kala dulda
aqoon-yahan Falagle bal soo gabagabay maxay kula tahay in madaxda ugu sareysa dowladda federaalka sida madaxweynaha oo heshiiskan ba saxiixay markii sabtigii Muqdisho uu soo gaaray ra'iisul wasaaraha Ethiopia lana kulmay Abiy Ahmed maxaa la gudboon bay kula tahay oo kala gudboon in shacbiga Soomaaliyeed oo heshiiskan shaki badan wali ka qaba horta waa ku celcelin aqoonyahanada waa la qabaa waxa weeyaan waad ogtahay oo isgaarsiin haday noqoto waxbarasho haday noqoto caafimaad haday noqoto si walba haday noqoto shakhsiyaadka wax walba gacanta ugu jiraan waxa tusaale kaaga filan hay'adaha caalamiga ee kaalmooyinka Soomaaliya keena wiilasha yaryar ee hay'adaha u turjuma wixii meeshii ay rabaan ay cawlaada geeyaan dawladda kama hor istaagi karto maamul goboleed kama hor istaagi karo dadku ayagoo dhimanaya ayaa wiil yaroo la guruushan haystaa laga saxiixaa waxa dhacdo haddii marka dawlad gaamura oo darisnimo naga dhaxayso oo naga dhaxayn jirtay oo dalal waaweyn leh haddii la guru yahay oo waliba dad soo barday rabtada dalka ay ku dul cunto ee la keeno waxa weeye su'aashu waxa weeye wiil yar oo hay'ad caalami u shaqeeyo dalkiisu Nairobi yahay ayaa macaawinada dalku lahaa laga control waay yaa ka controlayo weeyaan arrintu marka waxa weeye wax qarsoon maaha laab la kaca oo u taageersan madaxa sare dawladda ama reer ama hunguri meel la iska dhigo kuwa kursi ay waayeen ama madaxda sare reer ku riixayaan meel la iska dhigo marka la isku soo xooriyo warkoodu qaaqdayay laakiin dadka Soomaaliyeed ee wax garanaya waxa weeye Ali Khaliif Kaleer baa waxaan ka kororsaday murti ahayd meesha ka gashaan baa ka galay gobonimada iyo qarannimada ila difaaco waxa weeye nin ay gooridan ugu tahay bale deegaana gooridan ugu tahay bale madaxweynaha iyo dawladda waxaan leenahay mas'uuliyaddu ma dhigayso taariikhda Soomaaliya ma gelin iyadoo la gumeysanayo ama iyadoo xora in hogaamiye Soomaaliyeed uu yiraahdo Ethiopia inta adduunka soo barada xeebaheena waxay ku soo barada ku gadanaysa waa taariikh cusub iyo albaab cusub aan ooy albaabka iyo xilli caaw taaganta aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa inay u istaagaan in qarannimada Soomaaliya ee waliba sida raqiiska ee waliba sida aflagaadada raba in loo meeriyo laga digtoonaado waatahay Ahmed Farmaajo kuma kacsanin sababtoo aanu ahayn hadda la xiriir kuma hayno laakiin marna laga aqbali maayo lacag Imaaraadka Mareykanku ay bixiyeen ayaa dekedaha Ethiopia ku maalgashanaysa magac xumo iyo sharaf xumo Soomaaliyeed weeye arrinkaas laga noqdo waatahay ugu dambeyn bal noo soo gabagabay diblomaasi Maxamed Maxamuud ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka Soomaaliyeed waqti badan bay dhibaateysnaayeen maanta hooyada xamar ku gaajaysan garow ku gaajaysan ku baabaasan in loo duceeyo ilaahay uu dhibaataan ka qaado waxa dhacay maalin walba hogaamiyaha daacadda aan moodno baa noqonaya kii Ethiopia u noqday marka anigu waxay la muuqataa wadankan odayaal buu leeyahay culumu leeyahay annagu haddaanu go'aan ku gaarno inaanu heshiino waan heshiin karnaa haddaan ku gaarno inaan wax dhisno waa dhisan karnaa dadka ugu dhaqaalaha badan Afrikaanna dadka ugu bada dheeraanay dadka beeraha laana wadanka Soomaaliya waa wadan qani ah colaadana adduunka colaado ku xun baa Soomaaliya tii Rwanda aad ogeyd laba qabiil isku baabaasheen waxa raalli oo lagu kala tagay maanta Rwanda example waxay tahay Afrika marka annaka haddii hogaamiyaasha musuqmaasuq iyo lacag hadduu qof walba doonayo wadanka horumar ma gaarayo marka waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay faraj qiiqa ummadda Soomaaliyeed u furo